daawadayaal weli waxaan ku dhex jirnaa barnaamijkii ciidda iyo salaamaha haye walaashay marka ugu horeysa magacaaga xafladan maanta ciidda maaragtay ciidul fidrida halkeed uga timiday sanad u arkaysa ayaan jeclaan lahayd inaad munaasabadda ciidda taanidis bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Naciimo Maxamed Ismaan waxaan ku noolahay magaalada Northampton horta waxaan aad ugu mahadcelinayaa Xaamid oo isagu mar walba ciidda munaasabadda ciidda naga duuba aad baan u mahadcelinayaa dhammaan waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta ummadda Soomaaliyeed ummadda reer Somaliland meel kasta joogaan waxaan salaamayaa walaashay waxaan salaamayaa hooyaday Aamina Jaan Axmed iyo waxaan salaamayaa dhammaan aabahay Maxamed Ismaan iyo dhammaan walaalahay oo dhan waxaan salaamayaa walaalahay qaar halkan ila jooga asxaabtayda oo dhan xaajigayga carruurtayda waxaan salaamayaa ilmo Bashiir oo xaajigayga walaalihiya dhammaan waxaan salaamayaa ilmo Cali Gibile oo ah ilmo abtiyaashay waxaan salaamayaa walaashay Hibo waxaan salaamayaa xaajigeeda Maxamed Cali Lubsiye aad baan ku salaamayaa Xaamid adigana ilaa dadka waxaan salaamayaa reer Djibouti oo ka soo jeedo odagaygu dhammaan waan salaamayaa waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam wa antum bikhair bismillaahir rahmaanir rahiim ciid mubaarak kulli caam wa antum bil khair xaga waxaan ka salaamayaa reer Djibouti oo dhan gabiyahan gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwadiisa Khadra Maxamuud Xayd waxaa kaloo salaamayaa hooyaday Aamina Saciid Meydhane iyo hooyadayda kale Faadumo Cumar aabahayna waan salaamayaa Ibraahim Yuusuf waxaa kaloo salaamayaa ninka walaalka aan nahay Colonel Wacays oon aad ugu hambalyaynayo defileegii quruxda badnaa sida u soo bandhigay marka waxaan leeyahay kulli caam wa antum bil khayr kulli caam wa antum bil khayr reer Djibouti waan salaamayaa waa anoo ah Fofana Reekarton Yusuf Fofana Reekarton salaamu calaykum to everyone in Djibouti. Eid Mubarak. Special hello to my husband Mohammed in Djibouti at the moment and all of his family. We love you. We hope you're all okay, inshallah. Assalamu alaikum. Hello everyone. My name is Aiden. Assalamu alaikum. Hello everyone in Djibouti, especially my dad. Eid Mubarak. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Magacayga Habboon Xaamid Ibrahim. Eid Mubarak. Especially the Djiboutian people. And حضرني مع السلامة أيدي فاطمة أيدي حليمة السلام عليكم عيد مبارك السلام عليكم مرعيق هباق محمد عيد مبارك everyone السلام عليكم اسمي بسمة عيد مبارك لكل أحد صوماليا وجيبوتي اسمي بسمة مقعي شعيب محا سلامة يا جيبوتي the whole Muslim Ummah هويدي أبهي وسلامة يا هاب خضرنكو سلامة يا أدر وعشنكو سلامة and عيد مبارك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي قول دقن إبراهيم I want to say Eid Mubarak to everyone in Djibouti, Somalia سلامة يا أيدي أي حليمة أي فاطمة يا أوغي Somaliland jooga iyo hooyaday aabahay iyo Adi Zahra iyo qof kasta Assalamu alaikum. Today we're celebrating Eid in Riverside Hub. I want to say hello to my auntie and my mum and my dad and my uncle, my grandparents. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacayga waa Fatima. I'm 10 years old. Waxaan salaamayaa ayeeyo iyo awoowo. Assalamu alaikum. Magacayga waa Aamina Yuusuf. maanta waxaan salaamayaa aabahay maamaday abtiyaashay eedadii iyo adeerkay ciid mubaarak marka ugu horeysa magacaaga iyo maanta munaasabadda ciid ayaa jeclaan lahayd inaad halkan uga taaniyeyso السلام عليكم magacaygu waxa weeyaan waa Basha Yuusuf Maxmed Basha Dalmar waxaan ka salaamayaa anigoo u tahniyay munaasabadda ciidda awgeed ummadda muslimiinta dhammaan meel kasta joogaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed dhammaan reer Djibouti reer Somaliland reer Soomaaliya gaar ahaan reer Boorama xaafadayadii hooyaday Maryam Maxamed Bile walaalahay dhammaantood ayaan halkan waxaan ka leeyahay ciid mubaarak
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وهيبة محمد عثمان وحنا هلكن كالسلامة يا العيد ونكسل لها هرت فارس أمد المسلمين تملك ستوجان ما شاء الله فاميلي جيجا أبهي محمد عثمان هو يدعم من الجامع ولالك عبد الله عوالي عبد الرحمن عبد الرحيم عبد المجيد أسماء قالي أيان إفراح عبد المجيد دمان حافظ دمان السلامة يا حلا عيد ونكسل أكرم نواويل كاغو السلامة إنا كيجي علي اسمها هرقيسة شوقة ما شاء الله سلامة أكرم أكرم أيدي أوفي سلامة لا أكرم عيد مبارك أمين عيد مبارك كل عام وأنتم بخير دمان ومد الصومالي ملك ستوشوغان عيد مبارك كل عام وأنتم بخير دمانتين عاد ما سنتهاي أنا نك سلامنا وحنا كلا سلامة يا دمشقي ولا الخيقة إديل دلمر أو شوكت بورما يدمان فاميلي جيجا دمان ريتشو بتنحل هاي عيد مبارك في صومالي لاند دمان وحكلا حكا كسلامة يا دمشقي صدق أكرم بابا كودي ميكروفون كودي ميكروفون كده هاي حكلا حكا كسلامة يا صدق داي علي قبلي حلاها عيد مبارك كل عام وانتم بخير بلغ ورين مقعاقا يمانت عيدا مناسبة عيدا هالكاد قتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعاقا هبون عبد الله إبراهيم باليرا مقالة المالنطة بندقنا هاي عيد مبارك والله ومدى مصر ملك السيجوغان والدين تيدا الصحاب تيدا ولا لهي عيد مبارك كل عام وانتم بخير ان هبون عبد الله مانتا ما markii kugu horeysay ba aad ku ciiday magaalada Northampton mise hore baad may dhowr jeer oo kala ku ciiday Northampton laakiin waxaan uga iman jiray London laakiin imika Northampton baan soo guuray reer Northampton baa kamid ahay كل عام وانتم بخير reer Northampton iyo reer London reer East London ay en ciidii aad ku ciidi jirtay London iyo ciidan maanta Northampton aad ku ciidaysid maxaa u dhahay والله فرق وين بقول حياة هلكن فاميلي جيجي بقول كل عيديا محل ده تسمع فاميلي قدام بجوتا ولا شيء ولا الكي حمود فاميلياشي عيالك رارهي أصحاب بدن صومالي فربدن مركا قصوح ذي كفر بدن سنة تمتن لتك لندن أي أمدي ما ترى تبوتي هذا رهان دادو كسوة جدة أمدي صومالي أمدي إسلام كا هاد ما تقول تاني دين سام أمدي إسلام كحنا السلام عليكم عيد مبارك إلهي دك مسلم رب القادم القصتي جوغان با ومد الصومالية دو الله عيد مبارك إلهي يقلب كوغا سدوات دا كد القادم غارهان مد رير جيبوتي كل عام وانتم بخير وودن كيغي ودد كيغي وولالهي واصحابتي وهويدي وددكي وولالهي كل عام وانتم بخير مرنا بما إلهي كرا halkaas aan ka soo jeeda insha Allah magacay waa Riyaad Xasan haye yaa taashanaad هويد أو تسنينو جعل أو تسنينو يادر يو إيدو يهويو يابو adeer hooyii aabaalkay joogaan إنجلين Northampton ها adi Northampton ma ku dhalatay ها haye waxaad tiraa kullu caam wa antum bikhair كل عام أنتم بخير thank you so much عيد مبارك عيد مبارك ان daawadayaal saad u arkaysiin waxaa ila jooga waa ninkii qaaliga oo laba magac loo yaqaan Abdi iyo Tuulo isaga dadka ka orin jiray Tuulo markii dambe waxa loo bixiyay isaga Tuulo waraya Tuulo daalayseedu Abdi Afuiri haye laakiin Tuulo dadka magacayga la qabso way inuu inkastoo aan diiday haye ana magaalada ku oran jiray waxay dhaadeen Tuulo war dadku afka weyn way ka xanaaqaan adigu maxaa markii hore laga xanaaqi jiray kastoo daalayseedu la bixiyay mumkin berigii hore ayaa Buraali ugu bixiyay daalayseedu waxay dhaadeen Abdi Afuiri markaa waxaan salaamayaa marka hore TV-ga Djibouti RTD iyo shacabka reer Djibouti madaxweynahooda qaaliga ah Ismaaciil Umar Geyle iyo baroodiisa qaaliga Khadra Xayd waxaan leeyahay kulli caam wa antum bil khayr halka ka wada Djibouti waad kiciseen dadkii waa soo wada jiiseen doorashadii waad ogeydeen jacayl dartii bay dib ku soo celiyeen si waxaad u qabatay dadkiina iyo dalkiinaba halka ka wada dadkiina dhaqda waa taqaan anagu Soomaaliland baa nahay waan taageeraynaa waan salaamaynaa hiiliyo hoobo taaganahay labada shacab waa isku wada mid xaqna way degan yihiin labadu waa isku wada af waa xidig iyo xigaal marka waxaan leeyahay marka hore aadna waxaan u salaamayaa TV-ga Djibouti oo waliba garwaday ka yahay ninka weyn ee qaaliga Mr. Hamud oo daalaha la yiraahdo TV-ga Djibouti meel walba uu taagan yahay farxadda aan ciidayna isaga noo hindisay oo ri kaalaya meeshana fiican meeshana wanaagsan reer Northampton kaalaya Soomaaliya oo dhan buu isku yeeray meel kasta ay ka kala yimaadeen marka waxa mahadda oo dhan oo siina markii ugu horeysa
masar xaamud oo ah nin la madadaala oo aan la ilaawi karin cabdi waa mahadsan tahay walaalkay balaayo maanta maxaa sileeda ciidii hore kaga duwanta waxay kaga duwan yihiin ilaa storata waxaan islahayn dee ciidan waxba ma noqonaysaan isla mar haddii xaamud noqon yahay laakiin xalay waxaa nagu noqotay saburays xaamudoo soo degay markiiba calashaan wuxuu ogaa shaaliyadda inaan keligii aan wax kale noo qabsoomaynin aadna adigu waa saddex xaamud waayahay aad baa u mahadsan tahay haya adeero soo dhowow waa dhallinyartii magaalada Northampton adeera magacaa huda cabdi ya haya ciid ayaa jeclaan lahayd inaad salaantid shacabka reer Jabuuti iyo madaxweynaha Ismaaciil Umar Geelle iyo marwadiisa qaaliga khadra haya hadal adeero kun salaamaya hooyaday iyo aabbahay iyo walaalkaya iyo muslimiinta oo dhan iyo muslimiinta iyo Soomaalida oo dhan iyo Jabuuti oo dhan haya thank you Assalamu alaikum. I'd like to say say hi to my mother, my father, my family. My name is Muhammad, and I'm from Northampton. And Eid Mubarak. marka ugu horeysa magacaaga ciidana sidaad u arkaysaa magacaygu waxa weeyaan Anas Waciis Mulbaqare maantana ciida waxa weeyaan maalin fiican yahay markaana waa ka dib haye ayaa jeclaan lahayd inaad salaantid waxaan jeclaan lahaa inaan salaamo hooyadayda iyo aabahayga iyo familygayga oo dhan haye adigana waxaan dhahaa Safwan Ali Ismaaciil iyo ciidka waxaan ku jecelahay meesha haladaha Riverside Hub haye iyo waxaan warbin salaamo Mohamed Farah orodyahanka haye adu waxaad tirahaa kullu caam wa antum bikhair kullu caam wa antum bikhair كل أمت وأنتم كبير مع سلامة صفوان علي إسماعيل وحنزه علي إسماعيل أبو ديد وحوايا محمد داخل الشرف وهاي ديد صفوان علي إسماعيل السلام عليكم وعليكم السلام قم أنت السلام عليكم أنا اسمي باسم أنا اسمي محمد هذا أخويا today إحنا رحنا صلينا مع أبونا داخل بارك مع يمني كل حد وصومالي وبنجابي وكل حد مسلم بعدين أجينا لهنا لريفرسايد هاب لعبنا دحين بنروح بيت عيد مبارك أنا محمد إحنا لأهلي بارك مع كل حقنا صاحبتنا وأنتي وأنكل دحين إحنا هنا اللي لعب لعيد عيد مبارك